بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهينا ونكسم المهدنين سبحانه وتعالى habeenka wanaagsan inoo qadaray masaajidka wanaagsan inaan ku kulano inagoo fadhinaa inaan raali gelino subxaanahu watacaala oo aan ku raali gelino fadhigeena. ilaahay mar labaad waxaan ku mahadinaynaa subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey adduunka mugdiyaalkiisa iyo dhibaatadiisa shay lagaga baxo kii ugu wanaagsanaa buu ilaahayna siiyey subxaanahu watacaala. ومنهجك إسلام كوكاكوبا كتابك إلهي اسمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك هذا الكيلو ريي سيدا وشيغي بلشدة دينة إسلام كايستا كالينتا أما ماشا كل هاي dadka soo socda inay dhisto oo ay ka dhigto diintooda teeriya dadnimadooda ku jirsiiya diintooda dowrka mujtamaca ku leeyahay dhismaha dadka soo socda oo diinta laga rabo inay teeriyaan. saddex kelimaan ka dhigay mawduucayga aan u qaybinay. marka hore yani qofba sida ay ula muuqato ayuu mawduuca u gali karaa. dhinacyo badan baa la iska taagi karaa. marka aniga sidaan usoo dhigayo waa aniga moodadaydi wey, macnaha sida ila muuqato wey. meelo fara badan baa laga gali karaa. dadku isku wada aragti maaha. kama wado adilada sharciga kama wado, laakiin aragtida meesha lagaga tegi lahaa waa lagu kala duwanaan karaa. aniga markaa waxay ila muuqatay kow inaan wax ka tilmaamo bulshada la sheegay la yidhi dowr mujtamac fi binaa'i jiil mustaqbal. bulshadaasi inay tahay bulsho tilmaamo gaara leh waa loo baahan yahay. oo dee ciddan la yidhi waxbay diyaarinay barbaarinay iyada lafteedii marka hore waxay u baahan tahay dad diyaarsan waa inay yihiin. marka khasaa'ista waxyaabaha u gaarkaa bulshadan la sheegayo inaan tilmaamo waa jecelahay. laba, camaliyat albinaa, dhismuhu isaga laftiisu tilmaamuu leeyahay. dhismaha laftiisa tilmaamihiisa waxbaan ka sheegi lahaa. saddex, macnaha tilmaamo macnaha dhismaha aan u jeedno macnihiisaan wax ka tilmaami lahaa. afar, majaalaadka ama meelaha qofka in laga dhiso uu u baahan yahay ama jiilka laga dhisaa u baahan yahay wax ka sheegi lahaa. ugu dambeynna waxaan kusoo gabagabayn lahaa meesha aan u fadhino nuxurka waa dowrka bulshadaasi ay ku leedahay dhismaha maxaan ku dhahday jiilka. sidaan hadalkayga ku bilaabay waxaan idhi waxaa daruuri noqonaysa bulshadan inaan tilmaamno dowrulmujtamac. mujtamacaas intuuna dowrba cayaarin isagii waa inuu dhamaystiray ama uu dhisan yahay. innaga waxaan ka warramaynay waa islaamkii. waxaan miyuu qabsoomay maanta? ma qabsoomin oo la iskuma hayo. ma qabsoomi doonaa waxaan ka warramaynay. ilaahay waan ka rajaynaa subxaana watacaala. caalam islaamina baraarug baa ka jiro in uun baa dee loo gocelinaya waxa kana sheegan inuu qabsoomo. laakiin hadda ma qabsoomay may lama hayo. waa waxaan sidaa rajaynayna inuu qabsoomo. marka hadalkeenu waxaan ka warramaynaa waa alislaam ka nusuus, alislaam ka waxyi, alislaam ka falsafa. waxaan ka warramayna waa islaamku qaabkii wuxuu u dhigay baan ka warramayna. ma la hirgeliyey mise ma la hirgelin doonaa waa su-aal kale. in la hirgeliyo oo inagan u gocelinayna u gala caraabayna. laakiin waxaan rabnaa inaan bulshada ku qancino, dadkeena inaan ku qancino, caalamkana aan gaadhsiino islaamku ka nadariya islaamiya, ka waxyi islaamku inuu saalix u yahay, inuu diyaar u yahay, inuu wax dhisi karo, dad abuuri karo. marka bulshadani waxaan idhi tilmaamo ayaa daruuriya in la helo. tilmaamta koowaad bulshada loo baahan yahay inay dowr ciyaartay. tilmaamteeda koowaad waa alcaqiidatu waliimaan. bulshadani waa inay tahay bulsho wax rumaysan, iimaanna leh. ilaahay waa inay rumaysan tahay, iimaanna waa inay leedahay. si kale haddaan u sheego bulshadani agteeda waxa la yidhaaho athawaabit, waxaan aan isbeddel lahayn
ومرنا بقى نحسنين برشد وين الرميسان الدون كدد وحرميسان وحقبسان كرا وحنا ليس كرا دد أن وحرميسانين الدون كوحمسان كرا قارهان دد إلهي الرميسان وحسان كرا عالم كما أنت جبني وحول ما يسكو بيرين وعالم وحا نور لهاي وحا هذا العالم عالم بلا معايير تل وحا يسكو بيري معايير تبا يسكو بيري وحي وحا لغوت المامسني أستامي والوناكسان هاي اللي تيكسني اللي بيكسني با يسكو بيري حميه وناقي با يسكو بيري marka dadkan maanta zamankan aan joogno la nool yahay waxa la nool yahay bila macaayiir baa la nool yahay wax ka wanaagsan wax ka fiican wixii nala fiicnaba wanaagsanaa wixii nala fiicnaba xumaaday wixii nala xumaana way wanaagsanaa marka adduunkani waa adduun bila macaayiir ku socda waxa loo baahan yahay bulshadani wax sugan inay rumaysan tahay weligeed bisbedelay marka bulshadani waa inay caqiido leedahay وإن إلهي كلي رميسنت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نبي محمد با ليدي نبي محمد با إلهي رمي المؤمنين تنا إلهي ورسوشي وملائكتي برمي مركا عقيدة وإن درتو برشدني وإن عقيدة وإن إلهي عقيدة عنوان كيبو أما شعار كيبو وإنه يهي لا إله إلا الله شعارك أستانت ومدى لو يقاني ومدى كاللقا يقاني كقد وانتي لأنهم كمان تومت كسر شعار بشجنيس وضد كسر هذه المركبة العدي سواء أقول لها شعار سنان إيو عدالة إيو حرنمي إيو إن بوح لها شفاء إن أنت حريسة بالعيد وأقول لهم إن أنت ونفسين بالعيد وأقول لهم إنك عقيدة عن رميسان هاي شعار كذا ولا إله إلا الله عنوان كذا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ويبرشدني عن لا هاي وحبي بدل ليس وجيل بديار ليس لا إله إلا الله وحكو ركتا لا إله إلا الله وحكو قياستا لا إله إلا الله أدوك أحد قرر وعابد معها من إلهي كلي موي لا حاكم إلا الله إلهي كلي وأدوك وحكو نكرا لا معبود إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله برشدني وحي وحكو قيمساي وحكو ركتا وتوحيدك لا إله إلا الله وحكو ركتا وجهة نظرك حياتنا أي كلا هاي soo nimanka adduunka haysta maanta marka la wareysanayo arrinka ka waran aniga waxay la aragtidayada ilbaxnimadeeda iyo thaqaafadeeda markaan ku eegno arrinkaasi waa sida ay sida muslimku aragtida caalamka oo ku qiyaasay ku miisaamo waa la ilaaha illa allah tawxiidkaas wax ka saaraya ilaahay sidoo arkaa ilaahay aqeedadaas ayuu ka leeyahay adduunka sidoo arkaa la ilaaha illa allah ku qiyaasa nolosha dhamaanteed sidoo arkaa la ilaaha illa allah ku qiyaasa waxay yiraahdaan culimadu لا إله إلا الله صدح عنصر أما صدح الرمض وهم يمسن برشنا وحدث إيسا لا إله إلا الله مركتي لا إله إلا الله صدح شيء ولا غيره شيء كوال وحير هذا برشدني ألا تبتغي غير الله ربا صدق القرآن كل شيء برشدني ربك لو عين اللهين إلهي وحنا هاي وعين ربك لجنة إلهي وسورة الأنعام سورة التوحيد أي علماء قارين هذا الله وحكي قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وهو يطعم ولا يطعم إلهي وحكي آيات عن أخرني قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وحتى هذا النبي الله إلهي الله أنا هاي يا ربك لتا ربنا وتكون مقاشين تفسيرك ولا خلستين كلمة رب وحيلا العلماء معايق والخالق الرازق المالك أحد وحبورا وحيو أبورا كورها هم قري وديسي دي الرسمية يسوي ملكي وإسكالة بالله هذا رب قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء نبي الله وحتر هذا إلهي عدنا رب مياه كدتا رب با وحول بأبورا عنفسي إسكالة مركا لا إله إلا الله وحا أقومي ينسن محي ألا تبتغي غير الله ربا عدة ربنا ما تلي سوى إلهي كلي الله سبحانه وتعالى لغى ألا تتخذ غير الله وليا عده اللي مو قرقاري وقعنسين لو يدي استوى مجرين إلهي كلي وحنا نهين لا إله إلا الله عنصر كاسا كبيرا إلهي بقرآن كيسا كويني قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم
وحتى هذا النبي الله وغير الله أتخذ وليا إلهي عذا نهين بيان ولي كسميستا ولنا دو واحد ويديستو غرغار iyo hiilimaad oo barido oo ka dambayso uu gataba leeyahay wali waxa tira nabi allow ilaahi cidaan ahayn miyaa wali ka yeeshaa وهو يطعم ولا يطعم فاطر السماوات والارض الهي عريال يدليال بيسغا ابوري وهو يطعم ولا يطعم isaga ilaahay dadka cunteysii isaga lama cunteysii la ilaha illa allah عنصر kalabaad ba kamida oo gargaar ilaahay keligii baa weydiisanaya subhanahu wa ta'ala عنصرka saddexaad la ilaha illa allah waxay yiraahdaan alla tabtaghi ghayra allah hakaman hukm ilaahay cidaan ahayn aan ka dalbin ilaahay baa ku rabbi oo ku abuuray wax ku siiyo iska kaale laba ilaahay baad gargaar weydiisanaysaa isku haleynaysaa saddex xukun marka laga hadlana ilaahay xukunkiisa ka xukun dhiganaysaa ilaahay baa quraankiisa ku yiri afa ghayra allahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala waxa tira nabi allow afa ghayra allahi abtaghi hakaman alla cidaan ahayn miyaa de xukun ka raadiya وحل يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كتاب لك على نقول لك لبحبحي إله سود جي حكم كيس يتو كتب وحكم كلاميا كحكم دكتور سيدا كنا بنقول سورة الأنعام نبي محمد صلى الله عليه وسلم صدح العنصر لا إله إلا الله كقومتي عناصر بدن بكقومتي صدح له ميسن الله إنه ربي maxaan ku raadayay allah hiilimaadiyo gargaar weydiisanayna saddex alla xukunkiisa ka xukun dhiganaysaa bulsho ama ummad saddexda cunsur rumaysan oo la ilaaha illa allah saddexda cunsur ku rumaysan ayaa loo oran karaa waxbay bedelaysaa waxaan nidhi kow خصائص هذا المجتمع أمام مزايا هذا المجتمع مجتمعنا صوبر نقدر نقرأنا لدي مجتمع وحبوب بديل كلام جيب وديار كلام وإنه عقيدة والله إله إلا الله صدق عن سبب أمي مسا بندق الله أما المنطقة الله يقول الله الأفكار والمفاهيم برشدني أفكار تاي رميسان تاي وأنا سحتها خرافات يوحى عن دين توافق سنين إن الرميسان تاي الله وضعها bulshadan caqligeedii baa toosan caqligeedina wixii ku jiray baa toosan waa bulsho si sax ah wax u aragto si sax ah u fikraysa bulshadani marka koowaadba maaha bulsho iimaankeedu ka yahay ogeysiis maaha ila maanta iimaanku ogeysiis buu baday anigu muslim baan waa la iska wada sitaa waa iimaan magacaagi iyo dharkaagi baa iimaankan uu ka muuqda marka iimaanku iclaan maaha bulsho iimaanku iclaan ka yahay maaha laba bulsho iimaanku ka yahay maaha shakli madhar wax muuqda qolfoof iimaanku ka yahay maaha saddex maaha bulsho rumaysan jannada in lagu gaaro ubax sidii ubax la gornayo kale ila dadkeena qaar baa haysta jannada in cid walba iska tegi karto sidaan ubaxa loo gurto wax markuu meelaha ka baxo si yaro fudud baa loo goosta marka jannadu maaha ubaxii la guranayay murihii la guranayay waa bisil jannadu maaha bulshada islaam rumaysna waxay rumaysantahay jannada in loo geeriyoodo ee saxaabada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ragga qaar baa u bixiyey dhiigoodii bay u bixiyeen fii sabiilillahi maalka hore baa la yidhi oo waqtiga hore baa la yidhi oo kan hore baa la yidhi oo kan hore baa la yidhi oo laakiin meesha ugu saraysanayna weydiiyey qofku inuu naftiisa bixiyo uu ku doorsado geeri si ay diintiisu u samata baxdo diintiisu u badbaado marka waa bulsho aan rumaysnayn jannada in dhaya lagu tago ma rumaysan bulshadan waxay rumaysantahay jannada in loo geeriyoodo oo loo dhinto ayay rumaysantahay nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaad baa xadiiska muslim wariyey jihaad baa nabiga galay isagaa saxaabtiisii wanaagsaneyd markaa baa nabigu yidhi war raggii askartii ciidankeena madhayo ma la wada hayaa markaa baa la yidhi markaasuu nabigu yidhi war bal cid baa maqan raadiya markaa baa la yidhi hebel iyo hebel iyo hebel baa maqan markaasuu haddana nabigu yidhi cid kale bay naga maqantay markaa baa nabiga lagu yidhi hebel iyo hebel iyo hebel baa maqan markaasuu haddana nabigu yidhi cid kale bay naga maqantay markaasaa la yidhi may nabigu wuxuu yidhi ninkii hebel baa maqan sala allahu calayh wasalam
النبي عليه الصلاة والسلام وليس سرعي